xulkeena qaranka under 17ka oo kulankii uu horeeyay ciyaaray ayaga iyo dalkaasi Algeria. Masha Allah, xulkeena qaranka waxay soo bandhigeen ciyaaro aad iyo aad cajiib u ahaa oo runtii aad iyo aad qaab ahaan iyo performance ahaan u fiicnaayeen. xulkeena dhinac walba ayay ku fiicnaayeen markii laga reebo goolasha aysan dhalin. haysashada kubadda, raacista, qaladaad yar oo iska jiraan laakiin ma aysan badneen. iyo staafkiisa Masha Allah, shaqo fiican ay qabteen waana ku amaanan yihiin. markii aan usoo laabano oo aan ka hadalno ciyaarta, xulkeena qaranka ciyaartooyda ciyaarta iyo dalkaasi Algeria waxaad dareemaysaa ilaa ay 15 daqiiqo ugu horeysay xulkeena xoogaa 15 daqiiqo wixii ka dambeeyay inay jaanta isla heleen. isku dhigooda aad u fiicnaa baasaskooda. xoogaa yar kubadaheena oo aan lahayn wax yar hore socod ah dhinaca weerarka ah. goalkeeperka Masha Allah aad iyo aad ayuu u fiicnaa. organizkiisa uu haweenayo, sida uu dhiirigelinayo, sida uu kula hadlayo, saving uu sameeyay, badbaadada uu sameeyay. runtii goalkeeper Cabdiqaadir Masha Allah, hambali aan leenahay, hambali dadaalkaada meesha ka sii wad Masha Allah. difaacyada markaan usoo laabano, ileen footballka sidiisaba waa 4 qaybood, laakiin dadka badanaa waxay tiriyaan 3 qaybood laakiin waa 4 qaybood. goolhayaha oo number 1 ah iyo 4 difaac, weliba 4 qayb oo kaan dheelin 4 zone waay. goolhayaha dhinaciisa oo kasoo kaliisa laakiin zone ka mid ah waay. waayo qofka ugu dambeeyay, waa qofka badbaadada badan samayn kara, waa qofka awoori kara jaaniso kooxda ay scoring ay ku sameyso oo goolo ay ku dhaliso. maxaa yeelay waa ninkii ugu dambeeyay goolhayaha. goolhaya Marshall Masha Allah, Cabdiqaadir aad iyo aad saan ogeen ciyaarihii Ethiopia kaalin weyn ayuu ku lahaa. ciyaarahan hadda maanta macnaha oo hadda la ciyaaray kulanka ugu horeeyay kaalin weyn ayuu ku leeyahay. daafacyada aad iyo aad ayay u fiican yihiin, isku xirkooda, organizingkooda, isdaboolistooda. qalad wuu dhacaa markii gool u dhalinayna, qaladaad dhaca ayuu goolka ku imaadaa. labada gool naga dhalatayna kuleyba sababteeda anaga ayaa iska lahayn. koox kastoo gool laga dhalin sababteeda ayadaa iska leh, haddii gool dhalisana sababteeda ayadaa iska leh. difaacyada isku xirkooda iyo qaabkay u wada ciyaarayeen, soo bilaabistooda, kalsoonidooda aad iyo aad ayay u heer sareysa. waxaa arkaysaa wejiga hor macnaha wejiga oo goolka anaga goolkeena in ay ku wada ciyaarayaan si deganaan ah. weliba kabtan Cabdulle oo marna dheelayay baalaha duwaha, marna gudaha soo galay. runtii saas oo kale yarka la ciyaarayay 4 iyo 5 mar dambe dhexda la dheelayay. runtii duwaha iyo tareega labadaba dheelayeen aad iyo aad ayay u heer sareen. difaacyada organizingkooda aad ayuu u fiicnaa. dhexda saas oo kale, dhexda nimanka ciyaarayay iyo difaacyada waa isku xirnaayeen. walow bilowga ciyaarta 15 daqiiqo ugu horeysa xoogaa yar isku dhexyaaceen, laakiin marka dambe ilaa ciyaarta ay ka dhamaato dhexda aad iyo aad ayay u fiicnaayeen. macalinka Franzonga uu soo bilowday Masha Allah, iyo bedelada uu sameeyay, bedelo fiican oo hay oo jaaniso badan awooriyay ahaayeen, laakiin ma aysan dhalin wax gool ah nasiibka. laakiin jaaniso badan ay awooreen. haysashada kubadda aad iyo aad nimanka dhexda
raacitaankoodana aad ayuu u fiicnaa. xoogaa yar mar ay dhinacayn waa iska jirday, laakiin marka dambe jawiga aad ay ula qabsadeen. weerarkeena xoogaa waxaa u malaysaa weerarka iyo dhexda iyo guud ahaan weerarka inuusan isku xirnayn oo kubadda hore socod aysan lahayn, markasta naqashadeena ay badan tahay. maasha allah, waa rajaynaa tababarkii lasoo sameeyey, labadii maalin tababarka lasoo sameynayay, in qaladaadkii lagu soo saxaayo oo runtii ayagana laga soo badin. Gabon oo laga soo badin, Congo dalkaasi Congo oo ay soo badisay dalkaasi Senegal. runtii ciyaartooydeyna statistics marka la sameynayo ama lasoo bandhigo waxaad arkeysaa dhinac walba inaan ku fiicneen, markii laga reebo scoringka on goal aan dhalin, laakiin basaska accurate-ka oo saxda ah, hayshada kubadda iyo ball position-ka aadan kaga fiicneen, aad iyo aadan kaga fiicneen. isku xirka oo teammate-ka oo shaqeynta teamka ah bas keliya badan inay hore u socdaan. maasha allah, haddana shaqada lasoo qabanayay waa aaminsanahay macallimiinta inay ka shaqeynayaan maasha allah, oo kulankan hadda weliba isbedel weyn lagu soo sameyn doono maasha allah, oo guul aan ku gaari doono insha allah. waxaan rajeynaynaa ilahay idinkiisa. guuldaradan wax culeys ah ama wax barbaram ay keenaysa ma laha, maxaa yeele labada kulan loo dhiman mid kamid ah haddaan badino wareegga labada usoo gudbina insha allah biidni illahi raxmaan. waxaan rajeynaya labada kulanba inaan badina rajeynayna insha allah, maxaa yeele groupka 3 koox laga rabaa. waxaa waaye fursadaha qaaliga aan haysano, jaanisada qaaliga aan haysano ay kamid tahay. thaniyan ciyaar wanaaga ilaa hadda ciyaaraha macnaha kulamada la dhiilay, kulanka keliya ee performance ahaan iyo qaab ahaan aad u fiicnaa waa kulanka Algeria iyo Soomaaliya. weliba ciyaartooydina xulka qaranka da'yarta Soomaaliya oo runtii aad iyo aad loogu amaanay qaab ciyaareedka wanaagsan ay sameeyeen, dishibliinka ay sameeyeen. maasha allah, insha allah waxaan rajeynaynaa allah oo kulanka hadda uu soo horeeyo aan la ciyaari doono dalkaasi Congo oo ayadana laga soo badiyey. qaab ciyaareedkooda kulliba macallimiinta waa ay fiirsadeen. waxaan rajeynaa in kulankan iyo kulanka Senegal insha allah ilaahay guul na siin doono. farsamo ahaan iyo qaab ahaan kulli maasha allah aad aan ugu fiicannahay saddexda kooxba iyo wadamada ka qaybgalaya insha allah. maxaa yeelay Soomaalida farsamada waa mid rabbaani ilaahay uu siiyey subxaana casa wajal. skiilka Soomaalida mid la heli kara ma aha, runtii aad iyo aad skiilkeena Soomaalida uu fiican yahay ciyaartooydeyna. waan rajeynaynaa labadan kulan in aan kaga soo bixi doono groupka insha allah biidni illahi raxmaan. insha allah shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waqti walba ay u tahay, mar kasto waxaan nahay Soomaaliya, inaan garab istaag u muujino dhallinyaradeena da'yarta ah, in aan garab istaag weyn aan u muujino da'yarteena. dhinac walba aan ku dhiirigelin karno, wax walba aan ku dhiirigelin karno waa inaan ku dhiirigelinaa. Soomaali baa leh. maxaa yeelay qofka marka uu calankiisa waddan kale u geeyo wax badan uu dareemaa, wax badan uu arkaa, wax badan uu fahmaa. calankaada marka adiga aa u wado, maxaa yeelay safiira u tahay waddanka. marka ciyaartooydeyna qaaliga ah da'yarta ah hambalyaan leenahay, hambaliyo waa inaan u hambaliyeynaa, aan taageernaa, aad iyo aad inaan u taageernaa weliba. insha allah Soomaaliya guulaan leenahay, aad iyo aad umahadsantihiin. insha allah biidni illaahi raxmaan. waxaan rajeynaynaa kulanka oo koonka anagoo faraxsan inaan isku imaan rajeynaynaa insha allah. ilahay idin insha allah. asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.